Xibayaal aan ku bilaabana filimkan sheekadiisa horta wuxuu ku bilaabanaya ayaa la leeyahay tuulo kamid ah tuulooyinka Hindiya ayaa waxa imaanaya dad haajir ah dadkaas haajirkaana ama musaafirkaana waxa uga weyn nin lagu magacaabo Rana Dungana waxa matalayo ninka lagu magacaabo Randeep Hodha saaxiibayaal Randeep Hodha iyo dadkiisii muhaajiriinta ahay markay muddobaali deegaankaas lagu magacaabo ay imaadaan waxay isku bedelayaan rag qamarjiina dumarka laaya caruurta ka ganacsada xubnaha bini'aadamka ka ganacsada dadkana tahriibiya ayay isku bedelayaan saaxiibayaal hal mar ayaa dadka deegaanka waxay ka warhelayaan dad soo galooti ah oo burcad ah ayay ka warhelayaan saaxiibayaal sida darteed marka arrinka ayadoo saas ay tahay dadkii si xun loo haysto la gumaadayo la baabi'inayo la gubayo ayaa waxaa maalmaha kamida imaanayo gabadha lagu magacaabo Saamiya Qeer oo boolis ah ayaa saldhiga ka imaanayso deegaanka markay imaado waxay leedahay dadkan intaan oo qof ah iyo sidaan u baabi'iyay marka canug yar ayaa ka dhex hadlaya meesha wuxuuna leeyahay Rana Dungan in lagu magacaabo ayaa baabi'iyay dadkan ummadana sidaan ayuu u xasuuqay sidaan ayuu u badbaadiyay ayuu leeyahay kadib wuxuu isku dayay gabadhan Rana Dunga oo ah nin laga cabsado ilaa iyo dawladda dhexana la xiriir oo xildhibaanada iyo wasiirada ay hoostiisa imaadaan ayuu wuxuu isku dayay in ay gabadhan ay u tagto ninkaas ay soo xirto laakiin maxaa ka raacayay ayada iyo macala 4 gabdhood kale filimkan ku jiro oo powerful action ku leh iyo saldhigaba waxa soo dhanba waa la xaqaa laakiin maxaa dhacaya marka xaaladda sidaas ayadoo ay tahay ayaa waxa soo baxaya deegaanka imaanaya nin awood badan ee lagu magacaabo Chat ayaa soo galaya magaalka wuxuu bilaabaa sheekadiisa Sorry Ball ayuu bilaabaa isla markiiba dagaalkaba wuxuu ka bilaabanaa saldhigga dhexdiisa saaxiibayaal ciidamada Rana Dunga ayaa saldhigga dhexdiisa lagu laynaa askari ma aha shaqana kuma laha sidaa darteed marka waxa iska hor imaadka bilaabanaya waxa uu yahay Rana Dunga oo nin awood badan ah oo ilaa iyo dawladda dhexe ee bahalkii farta ugu yeerayo musuqmaasuqna dawladda uu ka buuxo iyo Jad oo kaligiis ah oo ay garabkiisa ay taagan yihiin 5 gabdhood oo askari ah ayaa iska hor imaanaya marka filimku waxa loo daawanaa ayaa la leeyahay iska hor imaatanka actionka iyo ficilada halista ah dhex marayo Rana Dunga oo dhinac ah iyo ninka lagu magacaabo Jad oo 4 gabdhood oo askari ah garab siinayo